السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دwow qaybtii toddobaad ee barnaamijka Ramadaanka. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلى الله ربي والإسلام. إن شاء الله maanta mawduuceena waa zakaatul fitr. Hadii fitri iyo afur iyo waxaasi ay soo bilowdeen ama aan ka hadlaynana waxa inoo cad inay gabagaba tahay bishii barkeysneed ee Ramadaan. Ilaahay baa mahadle oo inoogu soo dhameeyay si farxad iyo caafimaad ku dheehantahay iyo barwaaqo. Ilaahay naga mid yeelo kuwii naarta lagu xureeyay oo Laylatul Qadriga noo waafaqay. إن شاء الله waxaan ka hadlaynaa zakaatul fitr. Sadaqatul fitrina waa lagu magacaabaa. Waxaana fitri loogu magacaabay sababtoo ah waxay waajibtaa afurka Ramadaanka. xukunkeeduna waa waajib qofkii awoodo waxayna ku waajibtaa qof waliba oo muslim ah xur ha ahaado doon ha noqdo rag dumar صغير iyo كبير. waxaana uu laga wariyay ibn Umar radiyallahu anhuma qaal فرض الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان ساعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. يعني دمان قف لبا حر هنقضو الدون هنقضو لب iyo dhidig يعني rag iyo dumar wuxuu ahaadaba صغير iyo كبير kulli xitaa waxaa wanaagsan in laga bixiyo cunuga yar ee caloosha ku jira haduuba mar 4 bilood gaari 4 bilood markuu gaaro waa qof ruux lagu afuufay. waxaana la bixiyaa suus ama madaal sida u taqaanid oo timir ah ama shaciir ah. salafkana way sameyn jireen arinkaas mana waajibto ilaa laba shardi. koow al-islaam la tajibu ala al-kaafir. koow qofku waa inuu muslim yahay gaalku ma waajibto. midda labaad waa in la helaa wixii ka badan qofka yani quudkiisa iyo ciyaalkiisa waxay quudan lahaayeen wax waliba oo markii hore asliyan isaga quudin jiray yani uu biili jiray waxay quudan lahaayeen maalintaas ciida iyo habeenkeeda. midda kale oo inta badan dadka isweydiiyaan zakaatul fitr lacag ma la bixin karaa may midaasi waxay khilaafaysaa hadalkii nabiga ama dhaqankii saxaabada. waxaa la faray in la bixiyo saacan min tamrin aw saacan min shaciir ayagana sidaas ay bixin jireen. sidaas darteed lacagta ma wanaagsano in la bixiyo. xikmada iyo ujeedada loo fardo yeelay waa 3 arrimood. koow inay ka nadiifiso qofkii soomnaa hadaladii luqawiga ahaa yani wixii luqawiga hadaladii luqawiga ahaa iyo oo gafafka ahaa oo uu ku hadlay intuu soomnaa iyo warrafati. midda labaad iqnaa'ul fuqaraa wal masaakiin quudinta ama kaalmeynta waxsiinta fuqarada iyo dadka masaakiinta can su'aali fi yawm al-ciid yani maalintaas ciida inaysan dadka wax su'aalanin oo u gacan taagin iyo idkhaali surur alayhim in ayaga la farxad geliyo farxad gelintooda liyakuuna al-ciid yawm al-farah maalintaas ciid si ay u noqoto maalin farxadeed oo sururul jamiic yani fi'aat al-mujtamac dhamaan mujtamaca oo dhan si ay u farxad galaan. dalika li hadith ibn Abbas ayaa dalila radiyallahu anhuma farada ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam zakatul fitr dahratu lis-saa'im min al-lughawi wal-rafathi wa da'mati lil-masakin. waxaa fardiyay zakatul fitr si qofka ay soomnaa dahiriso wixii lughawi iyo rafad ahaa oo gafafkii isaga ka dhacay iyo quudinta masaakiinta. midda saddexaad fiiha idhaaru shukru ni'matillah ku sugan muuqashada yani shukrinta nimcada Allah adoonkiisa u shukrinayo biitmaami siyaami shahr ramadaan taam ahaanshaha bisha ramadaan wa qiyaamihi iyo wa ficli ma tayassara min al-a'maal as-salihah fi hada ash-shahr al-mubarak inuu u mahad celiyo taam ahaanshaha bisha ramadaan iyo u kicitaanka isagoo cibaadada ugu kacay iyo wax walba fudeed ahaa oo ficil ma tayassar ficil walba oo fudeed ahaa oo acmaash wanaagsan kamid ahaa bishaasi barakaysneed. miqdaaru alwaajib wa mimma yakhruj waxa way qadarka la bixiyo oo waajib ah yaas laga bixiyaa. alwaajibu fi zakati alfitr saacan min ghalib waxa waajib ah in la bixiyo saacan suus ama madaal min ghalib quut ahli albalad yani waxa markaasi u badan yihiin dadka meeshaasi ku nool ومن بر أو شعير بر أما قلي أو تمر أو زبيب تمر أما زبيب أو إقض أذيك قوت وحي مركاسي ضدك ميش أي أبذنين أو أرز أو بريس هنقطه أما مسكو لكن أنا أنت بدن مسكا ينبحنا هذا أو غير ذلك يوحي يعني غير كذا وحي آية كصهري لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة waxay ku sugan tahay xadiis badan oo saxiix ah ka xadiis radiyallahu anhuma al-muqaddam sidii yani xadiidkii hadda noo soo hormaray ee ibn Umar laga wariyay fi waqti wujubiha wa ikhraajiha waqtiga ay waajib tahay iyo bixinteeda
تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من ليلة العيد وحي واجبتا لعتانك قرحضة يعني هبينك عيدا لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان إساقوا وقتك أفرد بش رمضان والإخراجها بحتانك هذا وقتان ولا وقت فضيلة وأداء وقت الجواز يعني وقت أي فضيلة هاي قدشة يا وقت بنان عنك بلا وين وقت فضيلة أي تهي وقت فضيلة ودرشة فجرك أي مالين عيدة أنت آن لقلين صلاة عيدة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أي دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة وحال أمري زكاة الفطر إن لبحيو كهر أنت عندك أبحين صلاة عيدة أما وقت بنان وكهر يعني مالين أما لو مالين كهر مالين عيدة لفعل ابن عمر وغيره من صحابة لذلك والله سبحانه وتعالى أعلم intaasi waxay ahaayeen wixii alle naga fahansiiyay subxaanahu wa ta'ala tan kale mawduucyada ama barnaamijkan aan ka hadlaynay bishan Ramadaan waxaan ka akhrinayay ama aan ka akhristay ka soo bartay kutubka fiqh muyassar ilaahay baa mahadle oo markii hore inagu sugay wadada saxda ah oo igu hogaamiyay wax ka barto cilmiga sharciga ama shariicada islaamka wax kale uma tacalinaya calinkii soo baray kutubkan ustaad maxamed rufaaci waan kaaga mahadcelinaya sida wanaagsan aad noogu sharaxday kutubkan iyo kutubo kale oo badan ilaahay naga dhigo dhamaanteen kuwa mar waliba xaq ku taagan ee wanaaga dad fara والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.